kulanti wanaagsan daawade halkan waa janalka madasha wararka ku soo dhawaada qodobada wararka madasha waxaana kamid ah maxay tahay sababta ciidamada Kenya ay u soo buuxdhaafiyeen xuduudda ay la wadaagaan Soomaaliya mandhabaan ciidanka Kenya ay doonayaan dawladda federaalku ay u soo gacan galiyaan wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan Mareykanka oo lagu eedeeyay in uu xado kheyraadka Soomaaliya laba kamid ah raggii lagu helay kiiskii Aisha Ilyas oo saakay la toogtay maxay tahay sababta midka saddexaad toogashada looga reebay mandhaba in ay garwaaqsatay dawladda Kenya warkii ka soo yeeray maamulka degmada Mandera bangiga Masar oo xarun ka furanaya Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idin soo gudbin doonaa haddii aad nagu cusub tahay subscribe si aad u hesho wararka iyo warbixinada aan idinkugu soo gudbino channelkan aynu ku horeyno daawade dawladda Kenya ayaa lagu soo waramayaa in ciidamo dheeraad ah ay geysay magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari dalkaasi ciidamadan wata gaadiidka dagaalka ayaa lagu arkayay qaybo badan oo kamid ah gudaha degmada Mandera wararka ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in dhaqdhaqaaqyo cusub iyo howlgallo in ciidamadu halka ay ka bilaabeen sidoo kale dadka deegaanka ayaa cabsi ka muujinaya xiisadda ka taagan Mandera iyo dhaqdhaqaaqyada ciidanka halka ay ka wadaan arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo shalay sanitarada xildhibaanada laga soo darto degmada Mandera iyo maamulka degmadaasi ay dalbadeen in deegaanka uu isaga baxo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ay ku eedeeyeen in uu qalqalgelinayo amniga degmada Mandera xaaladda ayaa aad u kacsan waxaana tallaabada ay qaaday Kenya sare ay u sii qaadaysaa xiisadda halkaasi ka taagan ciidanka Kenya ayaa la sheegayaa in baabuurta gaashaaman iyo kuwa kale ciidamada lagu daabulo in halkaasi ay soo dhigeen ciidanka Kenyaanka ayaa la sheegayaa in feejignaan ay ka muuqato kuwaasi oo markasta ka baqdin qaba in halkaasi lagu weeraro hayeeshee mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Mandera iyo xildhibaanada iyo sanitarada ka soo jeeda degmadaasi ayaa shir jiraa'id oo shalay ay ku qabteen magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxa ay kaga hadleen xiisadda ka taagan degmada Mandera oo wareyntii mas'uuliyiintaasi ayaa ugu baaqay dawladda Kenya iyo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo ciidamadiisu in ay gabi ahaanba isaga baxaan halkaasi dawladda Kenya ay ka saarto hoteelka uu ka degan yahay magaalada Mandera sidoo kale sanitarada xildhibaanada ee deegaanka ka soo jeeda ayaa eedeeyay wasiir Janan iyo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland waxaana labaduba ay ku eedeeyeen in ay qalqalgelinayaan ammaanka magaalada Mandera xubnahaasi ayaa waxa ay sheegeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Kenya cilaaqaad wanaagsan uu ka dhaxeeyo isla markaana aanay u ogoleen degmada Mandera in lagu dul dagaalamo iyaga oo markaa ugu baaqay Cabdirashiid Janan iyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan in aysan wax dhibaato ah u geysan magaalada Mandera oo ay isaga baxaan magaaladaasi isla markaana magaaladaasi dadka shacabka ah ee ku dhaqan aanay ogoleen in lagu dul dagaalamo gudoomiyaha ismaamulka maamulka Mandera Cali Robo ayaa waxa uu sheegay in mas'uuliyiinta iyo ciidamada maamulka Jubbaland ay degmadiisa soo galeen markii dawladda Soomaaliya ay la wareegtay degmooyinka Doolow iyo Beledxaaw ee gobolka Gado Cali Robo ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in aysan doonayn in lagu kor dul dagaalamo dadka shacabka ah iyo mas'uuliyiinta kale ee ku dhaqan gudaha degmadaasi Mandera dadka maamulka mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland ee laga soo bixiyay Doolow iyo Beledxaaw waxay soo galeen Mandera qaybo kamid ah ay degan yihiin inagoo rabin dawladda dhexe ee Kenya iyo dawladda federaalka Soomaaliya in labadoodaba cilaaqaadkooda uu xumaado ayaa waxaan aynu rabnaa in faragelinta laga joojiyo madaxda sare Kenya ay naga saaraan ciidamadan Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo Maxamuud Sayid Aadan ay hogaaminayaan ayuu yiri Cali Robo oo ah gudoomiyaha ismaamulka degmada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo hore dawladda federaalka Soomaaliya ay Kenya uga dalbatay in ay soo gacan geliso wasiir Cabdirashiid Janan oo baxsad ka ah walow aysan ilaa iyo hadda si rasmi ah dawladda Kenya uga jawaabin dalabka ka soo yeeray dawladda federaalka Soomaaliya markan xildhibaan hore Faarax Macalin ayaa u soo jeediyay dawladda federaalka Soomaaliya in dib u eegis ay ku samayso ku tiirsanaanta Mareykanka waxa uu Faarax Macalin uu sheegay in Mareykanka uu xado wadamada
ku jira dalalka kala dambeyn la'aanta sida Syria iyo Soomaaliya. dagaalka lagula jiro waxa loogu yiri argagixisada ayuu sheegay in Mareykanka uusan daacad ka ahayn. qoraal uu ku daabacay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay in Soomaaliya dib u eegis ay ku sameyso ku tiirsanaanta Mareykanka ee la dagaalanka Shabaab iyo Daesh. siyaasigaasi ayaa sheegay in Mareykanka sababta dalalkaas uu u tago oo ciidamo fara badan uu u geeyo ay tahay sidii kheyraadkooda uu u qaadan lahaa. waxaana uu sheegay in kheyraad badan oo dabiici ah oo Soomaaliya ay lahayd in Mareykanka uu qaatay qaarkood kalena diyaarado uu ku gurtay. siyaasiga ayaa soo hadal qaaday in dalalkaasi Syria iyo Soomaaliya ee Mareykanku uu ku tilmaamo in kala dambeyn la'aan ay ka jirto uu uga faa'iideysto dhibaatooyinka dhexdooda isku sameeyaan, isagoo taa beddelkeeda sheega in uu caawiyo islamarkaana deeqo gargaar uu siiyo. balse waxa uu sheegay in gargaarka iyo waxyaabaha kale ee Mareykanka uu siiyo dowladahaasi ku tiirsanaanta Mareykanka ku nool ay yihiin kuwa Mareykanka uu ka faa'iido laba ujibaar waxa uu siiyo. Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in uu qaato dhammaan ugaarta iyo waxyaabaha kale ee manaafacaadka ah ee ay leeyihiin dalalkaasi. hase ahaatee dadka ku dhaqan dalalkaasi uu ku mashquuliyo in uu la dagaalamo Al-Qaacida, Daesh iyo Shabaab, balse arrintu sidaas aanay ahayn oo Mareykanka kaliya waxa uu dalalkaasi uu uga howlgalo ay tahay sidii kheyraadkaasi uu uga qaadan lahaa islamarkaana uu u xadi lahaa. haatan ciidamada Puntland ayaa saakay toogasho ku fuliyey 2 ka mid ah 3 nin ee lagu helay kufsigii iyo dilkii loo geysay Caaisha Ilyas Aadan oo 12 jir ahayd. dhacdadaas oo si weyn u taabatay ummadda Soomaaliyeed. raggan ayaa lagu toogtay fagaaro ku yaala magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ahna caasimadda gobolka Bari. 2 nin ee la toogtay ayaa kala ahaa Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige, halka muddo 10 cisho ah dib loo dhigay toogashada Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame. wararka ayaa sheegaya in sababta xukunsanaha toogashada looga reebay ay tahay in uu dalbaday aabbaha dhalay Caaisha Ilyas Aadan. toogashada raggan ayaa hore loo sii ogaa, waxaana 12 bishii hore shaaciyey xeer ilaalinta guud ee maamulka Puntland. dad badan ayaa si aad u soo dhoweeyey in cadaalad ay hesho Caaisha Ilyas Aadan. Caaisha Yari oo bishii February ee sanadkii la soo dhaafay ee 2019 la isugu daray kufsi iyo dil. ugu dambeyntiina bangiga Masar ayaa wada qorshe xarun kale uu uga furanayo Soomaaliya. gudoomiyaha guddiga maamulka bangiga Masar Maxamed Maxamuud Al-Uteybi ayaa waxa uu sheegay in istiraatiijiyadda bangiga ay tahay sidii bangiga loo ballaarin lahaa islamarkaana dalalka caalamka loogu fidin lahaa. mas-uulkaasi oo waraysi siiyey barnaamijka bangiyada iyo maalgashiga ee telefishinka Extra News TV waxa uu xusay in istiraatiijiyaddaasi oo la dejiyey sanadihii hore ay socon doonto 5 sano ee soo socota, looga dan leeyahay in bangiga Masar laga helo dalalka caalamka, gaar ahaan dalalka qaaradda Afrika. gudoomiyaha guddiga maamulka bangiga Masar waxaa kaloo uu sheegay in xarumo ay ka furteen dalal ka mid ah caalamka, islamarkaasna ay qorsheynayaan in faracyo cusub ay ka furtaan 13 ilaa 15 wadan oo Afrikaan ah. waxaa waraysigiisa uu ku sheegay in muhiimadda ay saari doonaan sidii ay faracyada bangiga Masar uga furi lahaayeen dalalka Soomaaliya, Kenya iyo Tanzania. bangiga Masar oo la aasaasay sanadkii 1920 waxa uu ka mid yahay bangiyada ugu caansan dalka Masar, wuxuuna faracyo badan uu ku leeyahay dalal badan oo ku yaala qaaradaha Yurub iyo Asia. gudaan warkii oo idinkala socoteen janalkan madasha wararka waa inaga intaa. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe si aad u hesho wararka iyo warbixinada aan idinkugu soo gudbino janalkan madasha wararka.